maanta oo aan joogno magaalada Gaalkacyo Galmudug State waxaa farxad weyn noo ah madaxweynihii Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo socdaalka uu ku yimid oo si diiran oo niyad furanaan ah kalgacal ah Soomaalinimo ah loo soo dhaweeyay waxaa yaabaha ugu weyn meesha ka dhacay sida shacbiga reer Galmudug ay u soo dhaweeyeen madaxweynahooda madaxweyne xildhibaano wasiiro shacab culimo arday lama kala harin si aan caadi ahayn oo wanaagsan oo isku daba dhacsan ayaa loo soo dhaweeyay marka haddana waxaan rajaynaynaa in uu u gudbi doono aadi doono deegaanada kale ee Galmudug ilaa uu ka tago caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb insha Allah farxad iyo reereen bay noo tahay wanaag bay noo tahay madaxweynuhuna ummadiisa shacabkii doortay ee soo dhaweeyay ee kalgacalka iyo niyadsamida ku soo dhaweeyay in uu arko gaari ku maro dhexdooda meel walba tago arka baahida ka jirta dalka abaar badana dhacday dhibaatooyin fara badana la soo maray mudugna waa meesha doorashada markuu ku jiray oo yiri nabadeynta waxaan ka bilaabi doonaa gobolka mudug markii uu guulaysto madaxweynaha uu noqdayna waa ku soo celiyay wuxuu yiri nabadeyntaan ka bilaabi doonaa run ahaantii waana bilaabay waana socotaa meel fiican ay maraysaa waxaan rajaynaynaa in intaas laga sii adkeeyo tiir adag loo sameeyo Gaalkacyo dhibaatadeedu wax badan sanado badan ayay soo jiitamaysay waxayna u baahneed dawlad Soomaaliyeed oo xal waara ka gaarta oo cadaalad ah oo ummaddu u siman tahay oo Soomaalinimo ah in laga gaaro ayay rabtaa oo dibadda loo adkeeyo insha Allah ta'ala taas waa la gaari doonaa aan rajaynayaa mar walbana waxaan ku adkeynaynaa dawladda federaalka ballanqaadkaas ah nabadeynta iyo wanaagga ay ku dhawaaqday oo ay bilowday inay sii adkayso wax badan ayaana loo baahan yahay deegaankan u baahan yahay deegaankan wax intii dhibaatooyinka iyo burburka iyo waxa lagu jiray iyo intii ka horeysayba wax oo dawladdu leedahay oo laga qabtay haba yaraatee ma jirto maanta marka waana loo sheegay madaxweynaha haddana waa u sheegaynaa wax qabad rasmi ah oo heer federaal ah oo heer caalami ah in gobolka loo soo jeesto ayaan ilaahay ka rajaynaynaa guul iyo barwaaqo aan rajaynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii waa u jeedaa sida hadda maanta Gaalkacyo loogu soo dhaweeyay dhinaca Galmudug waad arkaysaa sida raali looga yahay oo loogu faraxsan yahay inta kale ee gobolka degmooyinka iyo gobolka intiisa kalena waxaan rajaynaynaa sidaas iyo si ka sii fiican in loo soo dhaweeyo waxaan ka rajaynaynaa dawladda federaalka ah inay il gaar ah ku eegto Galmudug maadaama ay cusub tahay maamul cusub ay tahay madaxweynahaba hadda inta uu joogaahiba ay tahay waqti yar oo dhowr bilood ah aan sanad gaarin oo ay isla socdaanba dawladda federaalkuna sanad ma gaarin isaguna sidoo kale madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo maamulkaba haddana aan rajaynayno intii dhimanayd in la sii dhammaystiray oo ahlu sunna iyo maamulkii gobolada dhexe ka jiray iyo Galmudug oo la mideeyay oo hadda xafladii midowga lagu dhigi doono Dhuusamareeb oo madaxweynuhuna tagayo waxaan leenahay wax qabad aan caadi ahayn oo ballaaran ayaa dawladda federaalka ay ka rajaynayaan shacbiga reer Galmudug